joogta laakiin madow Soomaali eeg soo soo hadda waxay soo daabay Soomaaliya lacag dhacday Soomaaliya xaday wuxuu ku xaday lacag wuu dul maray xanta kabtiisa ku dhigneed wuu dul maray leebas السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داوديال سو دوادا magacaygu waa Hashim Jacfar Diiriye oo ka socdo channelka Elias Technology and Entertainment. Elias Technology and Entertainment waxaad ugu barateen cashiro ha noqoto Windows 7, Microsoft software, hardware oo kala duwan. Channelka wuxuu leeyahay qayb entertainment cashiro badan hore u soo aragteen. Maanta waxaan ku guda jirnaa qaybta entertainment-ga. Maanta waxa ila jooga Abdullahi Yirisow iyo Abwan Shobare. Marka Abwan Shobare inta ugu galin waxaan soo dhaweynaa Mr. Abdullahi soo dhawow. waa maasantahay Mr. Hashim aad baan ugu dhawahay channelka Elias Technology and Entertainment. Halagu yaa asxaabta subscribe, like, comment intaba iyo share asxaabtiina in badan ka faa'iido doonta channelkan waana ku dhawnahay qaybtiisa entertainment-ga. waa maasantahay waxaan markaana ugu gali doonaa asxaabta yaan la iloobin subscribe, share, like, comment dhankiina waa Abwan Shobare ay xasuusiyo maanta ma ku cusba kilibkiisa ugu horeeyay ma ahan waxa ka horeeyay gabayo badan iyo heeso badan oo hore u alifay maanta Elias Technology and Entertainment oo marti ku yahay soo dhawow aad Hashim Jacfar Diiriye waa dhawahay soo sheego waay hore macnaha abwaan waxyaabo alif hore wax u alifan ahay haddana waxaan idin leeyahay like, share iyo comment-iga xaqiina waay Elias Academy and Entertainment waa ku yaac aniga dhowr jeer markii oo asxaabtaada video daawadeen iyo gabayada aad soo bandhigtay dadka qaar waxay dhaheen maxaa dhacay abwaanka sawiradiis un baa arkay asoo live u hadlaya ma arkin marka maanta fursad u heshay fursadaasna waxaa ka heshay Elias Technology and Entertainment marka Elias Technology and Entertainment dadka ku xiran oo YouTube leeyahay maxaa ugu baaqi leed والله waxaan ugu baaqi lahay kulli abwaan oo abwaankii macnaha abwaan ali wax alifay waliba qaasatan taageerayaashaada taageerayaasha waxaan ugu baaqi lahay waxyaabo badan oo soo wada oo aan soo alifay inay ku soo xirnaadaan YouTube-kan kanalkan oo Elias Academy and Entertainment waana idinka daba geeray waxyaabo badan oo soo qaaday oo waxa jira idin dhiirgelinayo oo go'aamin idin siinaya jiro oo aan soo qaadi doono insha Allah daawadayaal waxaan idin sheegi doonaa waa abwaankii qarniga 2019 abwaankii oo qarniga waa loo kaco subscribe la saaro in badan waxyaabo badan uu soo bandhigi doonaa heeso xitaa uu soo wadaa gabayada soo wadaa yaraha soo wadaa marka subscribe xaqiina saa u socotaan teeda kale yaa la iloobin asxaabta uu ku leeyahay macnaha qaasatan bartiisa Facebook ah hadii macnaha oo subscribe-ka aan uga caawisan kulay waxa waaye aad idinkaga mahad celin doonaa insha Allah markaan waxa u gudagali doonaa maadaama ay maanta tahay qaybta entertainment-ga waxa jiri doono maadaama Abwan Shobare la fadhiyo iyo Mr. Abdullahi waxa jiri doono marka asxaabta adikaana macnaha comment-iga soo dhiiba doono nin walba sheeko meeshan ka soo jeedi doona hadii Ilaahay yiraahdo marka sheekooyinka marka waxay iskugu jiri doonaan qisooyin hore u dhacay iyo kuwo cusub marka sheekada aan ku hormaraayo qof kulli qofkii u xigsanaayo ii baraaje doono moogi marka Mr. Abdullahi bal ka waran aniga waxa isleeyahay sheekada soo wada ama taal Abdullahi ka qurxoonata ay taa soo wada tan Shobare ama ka qurxoonata nin walba wuxuu isleeyahay mid ugu qurxoon noqotid mid ugu qurxoon laakiin taa waxa go'aamin doono daawadayaasha nagu xiran daawadayaasha waxaan ka codsanaynaa marka sheekooyinka aan soo sheegno midda ugu shidan ama midda markaas ugu haysato inaan qaybta comment-iga أنا ورثان مركا أنا ما بلاوي أنا ما مسير هذا لو بلاوي لو بربنا حلين لحن بحب مديك تالي بلاوي مديك تالي بلاوي هذا كون بوندا مديك تنويا هذا مديك تالي مديك تالي مديك تالي واتنا هذا وينه هي أقولها شكلنا وحواي ودن كجبان سأل سعتي واد قانين Shobare niyo wadii wadamada caalamka markii la soo tirinayo wadanka ugu jeceshay maanta hadii oo lacala Ilaahay ku dibadda aad wadanka aad leeyahay wallahi niyo wadamada ugu jecelahay waxay kamid tahay Finland waa wadamada caalamka Yurub Soomaal Finland ugu jecelahay Finland ugu jecelahay okay كل فيلان وحواي أنا حتى من نعبني مركا دي لا يرى أنا حاجة أبوان أوكي أبوانك هو أستانت قرنك أما أستانت وطنك صح مركا هذه أبوان وطنك
ماي فيلان معناها فيلان أسي سومالي ما كجعله سومالي ما كجعله سومالي ما كجعله لكن وحباي حوجا موقتها حاجة وحكي لان لكن أنا بجعله يا وهذا عشان ولا فيلان أبو عالد صوبته أنا أبوان كي ميلو جعله وحكوا أرك أنا محوج هرا فيلان لكن توس مدقين وحصل الله ونعم ما أنا كهرا أنا كايره الفيلان كمارس ودن كان جعلنا موز هاي سومال سودا لنا هاي مش هيا كفي عن marka asxaabta sheekada hada u gudu galno sheekadan wadanka Japan wuxuu soo saaray machine lagu qabanayo tuugada machine-kaas wadanka ugu horeeyay ee tijaabiye wuxuu ahaa Mareykan lagu tijaabiyay Mareykan 3 daqiiqo gudaheed wuxuu ku soo xareeyay 5 nin oo tuug ah 3 daqiiqo ku soo xareeyay allora masdii kala Mareykanka tuugada waa ku yiri wala yaaba waxaa mataqaana 5 daqiiqo gudaheed markuu oo ku soo xareeyay isla markii waxaad qaatay ingiriiska mashiinki wuxuu ku soo xareeyay 15 nin oo tuug ah ayada loo yaaban yahay oo lahaa mashiinkan casri waa kan oo si sax ah mashiinka marka qaaradda America qaarad ka duwan waa Afrika Europe marka caalis wada qaaradii dhibka badan hal geeyay Allah Afrika la keenay wadanka ugu horeeyay lagu tijaabiyay wuxuu ahaa Tanzania 20 daqiiqadood waxa lagu qabtay 6000 oo tuug تنزاني ويا وعلى يلا قاضي لنقاسي آسيا لو اللي عربته صح عالقي ودنك إماراتك ما دام دقيقتها يكلو هري من يوم البوح دقيقيس قبتها مقتها تضرب دقيقة جديدة وحاولوا وقت 20 كن أوتو إماراتك مشينك شيء جاي marka waxa la maadaama wadamada caalamka ugu weyn qaarkood kamid la soo wada maray wadanka ugu dhiman wadankaas haligeeya alla wadan oo micnaha maanta hadii wax la yaab la ka soo baxay way geedka inta la keenay taqaan inta isleedin leedin hada wallahi Ethiopia la adigu waan diloosinba Soomaaliya la keenay Soomaaliya markii la keenay geedka Soomaaliya diiqadaha meeqtuga loo qoro iska isdheesin wallahi niyo Soomaaliya tuugana ma ku badan yihiin Soomaaliya halka daqiiqo waxa isleeyahay 1 milyan lagu qaban karaa tuuga geedki mashiinki wax sheegay laftiisa la xaday America Ingiriiska iyo dad tuugay kumanam soo saareyno Soomaali ma tuugiya ma wuxuu dhahay maxaa ugu baaro mashiinka waa lafta loo xadano yaa la qabana marka taas way cadaad Soomaali tuugada inay xaddi lahayn marka ana wadankeena macaan waa jecelnahay laakiin mashiinka soo sheegayo dad laf xada bin aadam mudahay sheekan caadi ahayn wallahi ani ma marka abwaanka wuxuu soo wada waxa ka boqoyaan in abwaanka moogtahay abwaan hay sheeka keenta horta waxa waa Soomaali hadda waxa ka faanay sheekadaas inay macnaha khibrad badan tahay mashiinki wax lagu soo saaray dhan inay qaadato laakiin macnaha sheeka keenta sheekadaas waxa ku keenay meel xaflada waxa ka dhacday meelaha waxa oo Yurubta kamida wadanka Talyaaniga qaasatan Talyaaniga waa xaflada ka dhacday meesha la isku Talyaaniga wadanka u dhishmo Totti iyo Birle wadana ku tuuso shaaftada tuuso kubad cagto ay xata magac Talyaano waa soo barata ay xaqooda laakiin Soomaaliya hey marka xafladii la isku imaaday markaas waxa joogo dad badan oo FBI ee waxyaabo badan macnaha oo baarayaan dadka oo qarsoodada dambiyada sameeyaan waxadaan xaflad weyn waa la baaraa صح marka meesha goobtii waxa ku dhaxdhacday marka lacag qiimo badan ku dhaxdhacday oo xaashi ka sameysneed oo adiga markaas xagga Yurub qaali ka like macnaha dollarka oo kale $100,000 isku duwan gaaladu xiran sameeyna mugtaa aduu ku dhacday markaas goobtii laga waaya marka صح فردي waa shay lacagta saa maqanaay qaab lagu soo saaray صح nin Talyaani soo baxay marka wuxuu dhahay ninka lacagta qaada ana 1 minute ku soo saaray Talyaani ila aan fajisto way hey markaas wuxuu dhahay u soo socday xaflad u fiiriyay nin madow Soomaali intaas madow waa joogtay laakiin nin madow Soomaali soo socday soo qabtay hadda waxay soo daabiyay dadka Soomaaliga lacag dhacday Soomaaliga xaday wuxuu ku xaday lacag uu dul maray xanta kabtiisa ku dhigneed uu dul maray leebis كنت لقط كور وقال لا بعد لقط كور وقال لا هلا لا سو Soomaali adii ma ogaa markii soo talgalay uu talgalay Soomaali kabtu waxaan ku dhigsaday wax adduunka all of the world wadamada kamid ah xaflad isku yimaadeen meesha aqliyasan wala bax meesha صح
marka ninkaan markii la qabtay waxaa la lugtaada kor u qaadaa nin talyaana ku maqnaa FBI-da kamid ah lugtuna kor u qaadaa lacagta laga soo fujiyo Soomaaliya laga tuugsiyaa naftirka talyaana ku tuugsanaa ila hadda la fadhiya xadeen lacagtii xadeen laga sii xadeen wallahi sheeg loo laakiin sheeg ma sha Allah kulli dad badan hadda oo meeshan fiirsanayo waa isticmaalayaan ila abwaanka sheegay ay Cabdulle wallahi laba sheeko waxa soo bandhigtay run ahaantii aad u qosol badan sax kaamirada quruxda badan waxa inuu joogo saska oo waa iloowe saska ma sha Allah inuu joogo nafaca kaamirada quruxda badan waxa inuu joogo nafac iska inuu joogo ma sha Allah waxa waaye asaga ma ku fariireysanaya maanta inay horta ani sheeka maanta idii haya asdhihi karo sheekooyinkiina waa jiray gilneed labadan sheeka wajira ogow inaa la faxday ma laakiin commentiga like hoos hal mar hadlo commentiga laga sheegay adi fiir nin la faxad aan sheegay oo wadamada caalamka ninkaan ninkii tuuga ahaa nin soo qabtay macnaha aniga tali Soomaalida tuugin Talyaaniga ka tuugsan adi maxana soo damarka waa ani sheekan adii wadaa oo Soomaaliga maalna waxa dhacday bakaar suuq bakaarada taqaani suuq Soomaali ugu weyn waxaa dhacday baawur waa taqaani baawurka qaybta dambe raaxeega aan saarnaa marka sax anaga Soomaali dhalinyaro ah wiilka wuxuu isticmaalaa aalada Facebook okay messengerka waxa badiis kala sheekeysanaya marka sax okay sax marka qaar baawurka kala raaxay ogtay afar qof qaada wiil kala soo fariistay meesha kamid ah rakaabkii baawurka meel soo socdo kulli sax marka هذا ما كان شيء سالان حتى قارك من وحلا جاي إيش وحلا يعني. يعني هذا سالان أو سامي استعمال المجالمة المجالمة. ما كان نكيه مثلا نكيه وفيرنا المجالمة حتى ما عنده. سانا. شكل سحلت معنا. مع أبوان نكاس. عارف كلام إيدي هذا أنا صاير استعماله ما راح يسوي أدبه. ناس من عادة لوجي عدوه. ما يسخن هذا ولا بس ماركن. كويده محل شيء معنا. وحد هذا ماركن نكي شكله بدله. صح. sheekadu bedelay wuxuu dhahay meel jaamac joogo markii sax wuxuu yiri aqi waxaan joogaa meel baabuurta ay ku badan yihiin oo jaam ah waxa dhahay wiilka Facebook isticmaalay aqi waxaan joogaa meel baabuurta ku badan yihiin oo jaam ah hadda asqaxir rabaa waxaa dhahay kii Facebook isticmaalay okay ilaa oo fiiriyo meesh ku jiray ninkii oo baash waa daawano isaga mugtahay second per second ka dambe markaas wadnii go'ay leeyahay ninkan ugu dambeyn go'aan waxa qaatay abaawrka socdo inuu daaqada ka boodo Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. Shit, I'm saying. كليس ninka maxaa ku akhrisaa leeyahay markaasuu yiri baxday oo hor u sii dhimo dhaan ninka waa ka yaabanaa wada ribaadinimo maanta taleefanka oo ila fiirnay marka asxaabtiina qaar kamid waxa laga yaabaa dhacdooyinkaas oo kale ma ilaa almar ninka markii uu messengerka fiirnay walaalow san reemagaliman iga qalay aniga qof sheegay ninkan oo la yaabo asaas garanayo islaha abwaan gacal abwaan adaa dirista qaan mogtahay ninka yaa waxa dhaday saaxiib ani inta meel jaaman jooga hay hadaan hawda ka cirwa ninka maxsada marka ninkan kale daaqadu ka dhacay Allah wallahi qaadi ajala saddex sheekano wixii oo inta mid oo ikhlas marka asxaabay waxa ha iloobina asxaabtiina dhamaan ha maanta waxa nala joogo Abdullahi Hassan Noor walaalkay qaali YouTube channelka la yiraahdo English Online Academy marka asxaabta ku xiran waxa idin leeyahay anagoo ah Ilays Technology and Entertainment please subscribe dhaha waa walaalkay Abdullahi abwaan shobare abwaan farxaan shobare maanta waa kana runtii marka daawatan waa ku farxi doontaan insha Allah abwaan hal mar hees yar noo soo gabagabay heesaha dhageysan ani maxaan hees ma qaadayo marka may abwaan waa fanaan kan waa hal hees noo gabagabay okay raala aan fanaan mi abwaan ka raba marka abwaan maadaama erey badan ah hees sameeysid ereyada sameeysid heesaha sameeysid ereyadooda mid kamid ah hatta noogu luuqay wallahi أقول له غنى براد عدو أقول له غنى هاشم جعفر الدري عدو محاوى هي حس حاول عسى سيرتن هيس محاوى جوابين صوماليد صومالي جوابنا والله ولا بايع والله يرضى إذا جوابنا مركا
dhaxsi bilaabi kartaa goob halisayaal geeridu kugu xeeran tahay waxaa lagu gacan qabtaayo gurmadku ku badbaadiya adoo horta galay dadaal waxaad gaari weydaye dantaadu ka gaabisa أنا هدا عمامة سيتورة هدا عمامة سيتورة من دمسك هيستان سومالاي نبض ومهم وبرواق يبرا هلما هذورالي أبواني هذورالي بليز إنا كان أحكي لما جعلين لكن مايا لكن فنانين تمحقوني بأريدا عد كان إلهي كسيه أرني لا دنيا والله أنا هو بيا ما فنانين فنانين كحرم صدقنا عن قريب أجران يا حريصن لا هذا لك أن الفنان أن قرش بري هستي مدرتو لكن قاركود أو كاكو بمجرانو أو معناها ما هي وحاول هستي بس بدنا وصوب بندقي مع بلا موسيقى أنا وصوب بندقي أوكي نود بل لا إله إلا الله أي Somalay nabad waa muhiim wabarwaaqiyo baraare waa nimcadan haysano ku faane waa shisheeyo hoostaada yimaade dhalinyaroy qabyaaladu waa qurun iyo qaaxad daran waa diinoo horseeday dalkeennii baaba'ay iyo mustaqbalkeennii oo dhumay أنا أحيانا هالكلي وقدر سنة دلكني باباي إيو أبوان شوبرو هالكان نلا أنا عبد ما ستين هالكاس أكسو جوجبينيا أنا جو هاشم جعفر ديرية وكسعد إليس تكنولوجيا and entertainment إيو ولكن عبد الله يريسو وأصنع كسعده تاني فيديو كل مدة سيا أيوه لكن سك جانا كذا شيء معاه مسك بحي أيوه إنجليش أونلاين أكاديمي بليز سبسكرايب لها سيدا نبتقلي وينو مركلة نبتقليو ما سنتين